بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسنا خيرتي داودياشا qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel ka soo caalamka guudkiisa naga daawanaysan ku soo dhawaada warka telefishinka qaranka Soomaaliland. qodobadayada warka ugu doorka roolna waxa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa furay dhisme laba dabaq oo cusub oo loo dhisay wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. fadhiyan caadi ahayn oo ay u balansanayeen golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qabsoon waayay kadib markii uu buuxsami waayay kooramkii xildhibaanadu. sidoo kalena xubno kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shir jireed ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay ku sheegeen in mooshin ay u gudbiyeen gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay kaga codsanayeen inuu soco khaladaad uu ka galay sharciga golaha wakiilada uu iska indhatiray ka jawaabistiisa. xubno kamid ah golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlay xeerka khilaafka uu ka dhashay ee dhawaan golaha wakiiladu ay u gudbiyeen golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa fariin wacyigelin waxa uu diray shacabka Soomaaliland isagoo ka warramay muhiimadda ay diiwaangelintu u leedahay muwaadiniinta reer Soomaaliland. intaasi waxay daawadayaal qodobada warka eega ugu doorka roon haatan u diyaar garooba warkii oo fidsan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa uu furay dhisme laba dabaq oo cusub oo loo dhisay wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. warkan waxaa noo faahfaahinaya wariyahayga Axmed Saki Daahir Xasan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xarunta qasriga madaxtooyada ilaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland la ku yimid kaas oo salaamayay shacabkii taagnaa marka uu madaxweynuhu marayay inta u dhaxaysa madaxtooyada iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland kuwaasoo shacabku ay si gaar ah madaxweynaha ay u gacan haadinayeen si ay u salaamaan. taasina waxay ka turjumaysaa qiimaha iyo nabadgelyada ka jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku caanamashay iyo sida shacabku u doonayaan Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. xafladan furitaanka dhismaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland oo laba dabaq oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu si rasmi ah xadhiga uga jaray ayaa soo jiidatay madaxweynaha, madaxdii, mas'uuliyiintii iyo waliba dadweynihii kala duwan ee ka qayb galay munaasabadaasi taasoo madasha loogu soo bandhigay waxtarka khayraadka dihin iyo qiimaha ay xoolaha nooli u leeyihiin dalkeena hooyo kuwaasoo lafdhabarta dhaqaalaha Soomaaliland. waxaana xafladaha kale ay kaga duwaneed xafladani waxa madaxweynaha markii uu soo gaaray wasaaraddaasi lagu maamusay caanageel. intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo kormeeray qaabka loo dhisay wasaaraddaasi xanaanada xoolaha kaasi oo xafiis u galay isla markaana eegay sida loo dhisay. intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland gudaheeda loogu sameeyay furitaanka dhismaha si cusub ee loo dhisay. waxaana ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah shirkadaha keena caanaha iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland kuwaasoo si isku mid ah uga warramay qiimaha ay xoolaha nooli u leeyihiin dalkeena hooyo. Dr. Cabdi Awdaahir Cali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ayaa si kooban uga warramay horumarka ay wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ay ku tallaabsatay muddadii ay xukuumadda u hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay jirtay. waxaanu halkaas uga mahad celiyay cid kastoo kaalin ku lahayd dhisitaanka wasaaraddaasi. markan xoolaha eego madaxweyne intaynaan iman 2010kii markaad ka soo qaado xoolaha dhoofay waxaa milyan iyo 800,000 maantana waxa dhoofa 3 milyan iyo 500,000 oo way laba goor laabatay. madaxweyne xooluhu kootay ahaayeen 2010kii $8 buu ahaa neefka xooli. maantana madaxweyne carafadii ugu dambeysay $9 buu neefkii ariga ahaa. waxa way markaynu kootadii ka saarnay madaxweyne waxaynu ugu nima halkan sida eegtay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xooluhu waxay ahaayeen 140 bay ahaayeen. maantana waxa way waa 320 way 3 laabeen shaqaalaha wasaaradda xanaanada xooluhu.
madaxweyne waxaanu shaqaalaysiinay 110 maanta kuwii joogay xarumaha joogay ee gurmadka degdega ee xafiiska safadhiya ee agaasimayaasha ee heeganka oo 150 shaqaale xanaanada xoolaha oo wada dhaqaatiir graduates oo ka soo baxay Sheekh Burco Ethiopia Sudan oo kuwa maanta runtii bilciyooda arkaysa in caanahan inoo qaybinayay gurmadkana ku jira xafiisyadana fadhi ee agaasimayaasha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay soona xidhay ayaa shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisa ugu baaqay in ay ilaashadaan xoolaha isla markaana ay ku dadaalaan sida ay u qiimeyn lahaayeen maadaama uu madaxweynuhu ay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha Soomaaliland mudane Axmed Silaanyo madaxweynaha Soomaaliland isagoo ka hadlaya arrimahaasi waxa uu yiri farxad weyn bay ii tahay kulligeen aynu tahaynayno maanta halkan ka qayb galno furitaanka wasaaradda xanaanada xoolaha xanaanada xooluhu waa lafdhabarta nolosheenna weeye innagana ama ha noqoto dhinac kasta noqoto nolosha dadka ha noqoto ama ha noqoto export iyo xoolaha ay wax naga soo galaan ha noqoto waa waxa aynu nolosheenna inta weyn aynu ku jisanay weeye sidaa daraaddeed inaynu mar walba ahmiyadda ay leedahay aynu siinaa waajib ina saaran weeye marka farxad weyn bay ii tahay inaan maanta xafladda ka soo qayb galo furitaanka wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan mar walba ballan qaadanaa haddii aanu dawladda nahay inaannu gacan weyn ka bixinno gacan weynna ka bixinno kana siinno hay-adaha ku shuqul leh horumarinta xoolaha dhaqankooda dhoofintooda dhismahooda iyo horumarintoodaba inaannu gacan weyn ka geysanno ayaa waajib inagu ah waayo waa nolosha ugu weyn ee dalkeenna dadkeenu haysanno weeye marka aad iyo aad baan ugu mahadinayaa wasaaradda iyo intii ka qayb gashay iyo intii nala dhistay wasaaraddan intaba aad iyo aad baa umahadsantihiin axmed sagdaar xasan iyo cabdilaahi cali suudi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa xubno ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlay xeerka khilaafka uu ka dhashay ee dhawaan golaha wakiiladu ay u gudbiyeen golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland wariyahayga Cabdiraxmaan Muuse ayaa warkaasi noo faahfaahinaya xubnahani waxa ay sheegeen dalku inaanu u baahnayn buuq iyo qaylo balse loo baahan yahay in wixii qaldan la isla saxo loona baahan yahay daacadnimo iyo in isu tanaasul la yimaado xubnahan qaar ka mid ah oo golaha wakiilada la hadlayay waxay ugu baaqeen in golaha wakiiladu arrin kasta oo yimaada laga wada hadlo wixii qaldanna la isla eego fadhi isugu yimaadeen golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan maanta qabsamin kadib markii uu buuxsami waayay kooramkii fadhiga golaha wakiiladu fadhigii golaha wakiilada ee maanta ayaa qabsoomin kadib markii ay u buuxsami waayay kooramku
isla markaasina ay madasha ka soo xaadireen 17 xubnood halka 50 xubnood in ka badani aanay madasha golahaasi ka soo xaadirin kuwaasi oo dalbanayay in inta aan la gudagelin ajandaha fadhigan laga garnaqo khaladaadkii sharci ee laga galay xeerarkii ay golaha wakiiladu ansixiyeen ee ka baxay golahaasi isla markaasina u gudbay dhinaca golaha guurtida taasi oo gudoomiyaha golaha wakiiladana ka soo horjeestay isla markaasina fadhigaasi markii koolimkii buuxsan waayay uu sheegay inuu fadhigaasi xiran yahay goluhuna geli doono fasaxiisa caadiga ahaa ilaa iyo inta laga gaadhayo 8 bisha 11aad intaasi kadib xildhibaanada golaha wakiilada ee iyagu ku eedeynayay gudoomiyaha in isbedel lagu sameeyay xeerarkii golahaasi ka baxay ayaa shir jaraa'id qabtay taasi oo ay kaga hadlayeen sida ay wax u dhaceen waxaana xildhibaanada golaha wakiilada hadaladoodii ka mid ahaa sida la socotaan maalmahan ugu dambeeyay golaha wakiilada xeerkii uu ansixiyay ee loogu tala galay in komishanka qaranku uu ku shaqeeyo si loo galo doorashada waqtigeeda ay u dhacdo waxa bulshadu maanta ay ka dheregsan tahay khaladka laga galay iyo sida loo majaray habaabiyay ee xeerkii goluhu uu ansixiyay xeer aan ahayn loogu gudbiyay golaha guurtiga taasoo goloweynaha baarlamaanka ee wakiilada Soomaaliland uu ka gilgishay una arkay inay tahay in la foojari gareeyay oo la macna duway xeerkii lagu shaqayn lahaa golaha wuxuu goostay afraad yar oo fara ku tirisa oo dana gaar ah mooyee in ilaa la dhameeyo oo meel la dhigo xeerkii uu ku shaqayn lahaa komishanka doorashooyinku inay tahay khalad in goluha la isugu yeero kalsoonidii uu ku qabay goloweynuhu uu ku qabay gudoomiyahana meesha ay ka baxday sababtuna waxa weeye de xeer dhan oo 9 qodob oo kamid ah la bedelay oo cad oo qodobka u horeeya ee saddexaad qodobo cusubna lagu kordhiyay qodobo 9 la bedelay waa la aqbali waay waa la kari waay wuxuu goluhu goostay inaan inta hawsha laga garnaqsanayo ee gudoomiyuhu ka xaaja qaadanayo arrinta meel lagu tiirinayo inaan goluhu furmin aan sida ka warqabtay marihaba waxa maqlayseen qayladaan ku saabsan xeer ka baxay golaha wakiilada oo la fuul jargareeyay oo la bedelay xeerka ay golaha wakiiladu ansixiyeen waxa ogtihiin inuu ku shaqeeyo qaranka Soomaaliland marka uu dhamaysto processkiisa ee uu maro guurtida ee uu maro madaxweynaha iyadoo taa laga duulayo xogtin baarlamaanka iyagu inuu shaqeeyo sida baarlamaanada caalamiga ah jira xeer baan curinaa waanu ka doodnaa waanu ansixinaa majority buu ku shaqeeyaa majority buu guurtida ku ansixiyaa madaxweynaha saxa majority golaha wakiiladu oo sharci ah oo aqlabiyad ah oo marxaati ka tihiin waxay codsadeen maadaama qaladkaasi dhacay maadaama uu qalad weyn yahay maadaama uu qalad sharci oo qaran yahay in arrinta la baaro la hubiyo arrintaasi inaan daweynaabaan doon halkii ay qoladii qaladka samaysay ay qaladkoodii ka saxi lahayd ama ay oran lahayd sidaas ah wuxuu dhaceen waxay ku darsadeen inay lahaan la si joojin maayee golahii baan furayna sidee buu noqonayaa iyadoon wixii la saxin in golaha la isugu taga hadana anigu kolay waxaan u arkaa wixii meesha ka dhacay inay tahay hasha geela cuntay hadana cabaada anigaana qaladka sameynaya ummadana ana wax kale u turjumaya de ummadda kolay mas'uul baad ka wada tihiin oo saxaafada tihiin xaqiiqada jirta u bandhiga oo u sheega anuu muddo badan baan ku jiray golaha waxa soo maray saddex gudoomiye soo maray dalkan ugu horeeyay Alla naxariistay Ibrahim Meegaag oo ku xigay xaabsade oo ku xigay qaybi isaguna kii afraad weey saddex ka horeeyay xeer la isku raacay oo gol far u taagay nin bedelay xarafna ka bedelay xitaa madbacad qalad madbacaya ka dhacday ma jirin waxana soo martay anoo xeer ka hadlayna inaan isqabsanay
inteedii golaha ku jirtay oonu feertanay oon dagaalanay oo codkii la qaaday annagoo feertamayna natiijo soo baxayso lagu dhawaaqay maanu garanay weliba annaga uu naga horjeeday qaybaa loo naxariistee uu ka soo horjeeday natiijada ka dhacaysa meesha haddana markii uu ku dhawaaqaano oona garanay wax ku dhawaaqayo wuxuu ku dhawaaqay sidii xaqahay markuna muuqaldin maanta wuxuu qaar badan uu qabdi lahaa baa jira halkaa ay dhacay laakiin wuxuu dhowrayay ummadda Somaliland iyo xeerarka u yaala iyo xeerka dastuurka ayuu dhowrayay nin haddaba isagu doonaya inuu maanta dalkii xukumo oo gurigiisiina gubanayo waa ayaan daro golaha wakiiladu maanta dabka waxa suraya gudoomiyaha iyo dhowr kalina la socdo laakiin annagu waxaan leenahay ummadana waanu turaynaa golahana waanu turaynaa walaal haddaan xitaa garnaqsi aan rabno dana la garnaqso wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa fariin wacyigelina waxa uu diray shacabka Soomaaliland isagoo ka warramay muhiimadda ay diiwaangelintu u leedahay muwaadiniinta reer Soomaaliland kana codsaday muwaadiniinta Soomaaliland inay qaataan kaarka aqoonsiga muwaadinimada qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland way taabagashay waxaan leenahay xuduudo sugan waxaanu leenahay calankii waxaanu leenahay dastuurkii waxaanu leenahay xukuumaddii waxaanu leenahay madaxweynihii waxaanu leenahay golihii wakiilada waxaanu leenahay golihii guurtida waxaanu leenahay ciidan qaran waxaanu leenahay lacag inoo gaara muwaadin waxay naga dhiman inaad isdiiwaan geliso oo uu qarankan iyo dalkan yeesho muwaadinkii gaarka u ahaa wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dalka dib ugu soo laabtay isagoo ka warramay kulamo uu la yeeshay jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Sacuudiga iyo sidoo kale xubno ka mid ah mas'uuliyiinta dalka Sacuudiga wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu soo dhameystay waajibaadka soo gudashada xajka wafdigan oo ay soo dhaweeyeen mas'uuliyiin iyo culimaaddin ka tirsan wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Aadan Cabdilaahi Cabdalle oo sheegay inay dadaal xoogan sanadkan ay ka galeen sidii ay xujaatu u tagi lahayd isagoo arrimahaas ka hadlaya waxa uu yidhi wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed halka waxa ku dhan dhammaan agaasimayaashii wasaaradda diinta iyo awqaafta runtii farxad bay inoo tahay saacada wasiir waxaan ku leenahay soo dhawow dalkaaga soo dhawow wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa uga mahad celiyay sida wanaagsan ee u soo dhaweeyeen waxa uu sidoo kalena ka warramay in sanadkan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka tageen 2,000 oo xujaaj 2,000 oo xaaji in ay ka mid ahaayeen 2 marxuun oo ku dhintay soo gudashada waajibaadka xajka waxaan runtii uga mahad celinaynaa iyagana mahadda ka sukow sida qiimaha leh farxadda leh soo qiimeynta leh ay nagu soo dhaweeyeen walaalayaal saa wadaasigu ka dhawaajiyay waxaan ku maqnaa muddo bil ku siman safarkii xajka oo hogaaminayay xujaydii ka baxday ama ka tagtay Soomaaliland ee ka xajaysay oo runtii gaadhayay 2,000 oo xaaji kuwaasoo runtii san hore warbixinaha u soo sheegnay si fiican oo qurux badan ay u soo dhamaatay arrimahoodii xajka iyo cibaadadii iyadoo runtii waxyeello badan aanay dhicin oo ilaa 2 qof ay maarta ku geeriyoodeen oo Soomaaliland ka mid ah dhowr qofna ay jajabeen wax ku simbaxay beekalmeeyo iyo wax gaadiid kale oo shiiraba runtii marka uu qaybiso 2,000 qof oo waxyeello 4-3 ruux ay noqotana waa mid iska caadi ah wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sidoo kale ka warramay xiriirka Soomaaliland iyo Sacuudi Carabiya ka dhaxeeya isagoo uu sheegay inuu la kulmay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalka Sacuudi Carabiya waxa aanu kulamo la yeelanay madaxda hay'adaha kala duwan haday tahay wasaaradaha khaasan wasaaradda awqaafta iyo hawlwadeenadeeda iyo sidoo kale hay'adaha samafalka runtii ka shaqeeya dalka Soomaaliland ee sharciyana kule oo runtii aanu qiimeyn iyo mahadnaq inta aan isugu darnay waxqabadkoodii
kuna soo ballanay inay halka ka sii wadaan oo kordhiyaan ayaan ku soo ballanay sida ismayaasha awqaafta haddii masaajidada haddii madaarista haddii xarumaha agoomaha oo kale intaana inay wax badan ka bedelaan xamse qurbaani iyo axmed aar telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan magaalada hargeysa akhyaartii daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan halka warkaasi kala socotaana waa telefishinka qaranka somalilan wararka kale dalka gudihiisa naga soo gaarayna waxaa ka mid ah golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa ayaa fadhigoodii maanta waxa ay dood iyo falanqayn ka yeesheen ee qodobo la xidhiidha ajandaha karfadhigooda 8aad oo galay maalintiisii 3aad kaasi oo ay ka doodeen xildhibaanadu qodobo la xidhiidha diiwaangelinta iyo weliba dakhliga dhinaca cashuuraha ee dowladda hoose kalfadhigan ayaa waxaa mudanayaasha golaha deegaanku ay ku muujiyeen sida ay laga maarmaanka u tahay in dowladda hoose ay kaalin mugle ka qaadato arrimaha dhinaca diiwaangelinta taasi oo ah bay yidhaahdeen howl qaran loola baahan yahay in hareeraha la wada qabto iyagoo geesta kale muujiyey sida ay ugu baahan tahay hawshaasi diiwaangelintu in wixii imkaaniyaada ee laga maarmaan u ah dardargelinta hawshaasi ay dowladda hoose doorkeeda ka qaadato geesta kale waxa ay xildhibaanadu dood iyo falanqayn ka yeesheen dhinaca dakhliga cashuuraha oo ay tilmaameen inaan la'aanteed dowladda hoose waxba u qabsoomi karin marka la eego hawsha ballaaran ee adeegyada dhinaca bulshada ee ay bulshadu ka sugayso taasi oo haddii aan dakhligaasi soo xiroonin ay dhaawac ku tahay bay yidhahdeen howlqabadka dowladda hoose isla markaasina loo baahan yahay in xildhibaanada golaha deegaanku ay iyadana doorkeeda ka qaataan isla markaasina hormuud ugu noqdaan howlwadeennada dowladda hoose sidii dakhligaasi cashuuraha loo soo xarayn lahaa xubno ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ayaa iyaguna fadhigaasi waxa ay ka sheegeen inay soo aftireen khilaafaadkii iyaga gudahooda kaasi oo ay tilmaameen in ay dadweynaha reer hargeysa ee soo doortay ka raaligelinayaan isla markaasina aanay ahayn khilaafaad iyo muran qotadiisu fog tahay balse ay ahayd sidii xisaabtan iyo hubinta howlihii loo igmaday ay wax isaga weydiin lahaayeen taasina iminka ay soo afjarantay haatanna ay diyaar u yihiin sidii iyaga oo wada jira ay howlaha loo igmaday uga soo bixi lahaayeen wasiirka wasaaradda dibadejinta jamhuuriyadda somalilan ayaa isku bedel ku sameeyey madaxdii laamaha wasaaradda dibadejinta ee gobolada dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda dibadejinta jamhuuriyadda somalilan oo uu ku saxan yahay wasiirka wasaaraddaasi waxa uu wasiirku ku sheegay in iyada oo la dardargelinayo shaqada qaranka uu isbedel ku sameeyey isuduwayaasha wasaaradda ee gobolada dalkan jamhuuriyadda somalilan wasiirka wasaaradda dibadejinta ee dalkan jamhuuriyadda somalilan mudane axmed cabdi kaahin waxa uu sheegay in jaamac siciid maxamed oo hore u ahaa isuduwaha gobolka saaxil ee wasaaraddaasi dibadejinta laga bedelay halkaasi iyadoo loo bedelay isuduwaha wasaaradda ee gobolka togdheer cismaan cabdi xayd oo hore u ahaa isuduwaha gobolka togdheer ee wasaaradda dibadejinta ayaa isna loo bedelay gobolka sanaag cabdilqaadir muuse warsame oo hore u ahaa isuduwaha gobolka awdal ee wasaaradda dibadejinta waxaa isna loo bedelay gobolka gabiley maxamed axmed jaamac oo hore u ahaa isuduwaha wasaaradda dibadejinta ee gobolka sanaag ayaa isagana loo bedelay isuduwaha wasaaradda ee gobolka saaxil ifraax maxamed sheekh yuusuf oo hore u ahayd isuduwaha wasaaradda dibadejinta ee gobolka gabiley ayaa iyana loo bedelay isuduwaha wasaaradda dibadejinta ee gobolka awdal gebagabadii waxa uu qoraalkaasi ku sheegay wasiirku inuu u rajaynayo dhammaanba mas-uuliyiintaasi in ay shaqada si dhaqsa ah ula kala wareegi doonaan qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda dibadejinta ayuu ku saxanaa wasiirka wasaaradda dibadejinta ee dalkani jamhuuriyadda somalilan mudane axmed cabdi kaahin agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda somalilan ayaa furay kulan howleed ku saabsan sidii loo dhaqangelin lahaa xeerka da'yarta khilaafta sharciga warkaasina waxaa noo haya wariyahayga xamse agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda somalilan mudane qadar axmed diiriye ayaa maanta furay kulan howleed ku saabsan sidii loola dhaqmi lahaa da'yarta khilaafta sharciga agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in kulankani ku saabsan yahay sidii loola dhaqmi lahaa da'yarta khilaafta sharciga isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi qofka yar marka uu dambi galo waxa weeye dambiga uu galay ama xeerka uu jabiyey waxweeyaan sidii wax looga qaban lahaa ama cadaalad ay u heli lahaayeen ama iyagaba khubro badan baa idinla joogto khabiira oo cilmiga maartay sharciyada iyo qawaaniinta intaba ku takhasusay waxweeye ilmaha yare marka uu gefo runtii dhowr buu u qaybsamaya
sidaa awgeed waxa weeyaan inaynu si gaara u eegna ayay muhiimaddu tahay oo ilmihii yaraa oo helo xanaano gaara islamarkaana il naxariiseed lagu arko oo lagu eego iyadoo aan islamarkaana la tixgelinayo dembigii uu galay iyo in bulshada dib loogu soo celiyo oo aanay noqon in loo caadiyo qofka qiil loo sameeyo oo la yidhaahdo qofkan oo qof yaree maarta aan la odhan sidaasaan doonaynaa inaynu ka wada tashanno gudoomiyaha gobolka saaxil oo weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada berbera ayaa kormeer ku soo maray deegaamo hoos yimaada gobolka saaxil waxyeelo ay ka soo gaadhay roobab dhawaan ka daayay deegaamadaasi wariyahayga mukhtaar cabdiraxmaan ayaa warkaasi noo faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka saaxil oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee berbera iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta socdaal howleed ku soo maray deegaanada Bixinduule iyo Mijacaseeye kadib markii ay deegaanadaasi ay khasaaro soo gaarsiiyeen dadka xoogale ay wataan roobka ka daayay deegaanadaasi qayladhaana ay gobolka ka soo gaadhay dadka ku dhaqan deegaankaasi gaar ahaan dadka beeralayda ah gudoomiyaha gobolka saaxil Fahmi Cabdibidaar oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in gobol ahaan iyo xukuumad ahaanba ay kaalin weyn ka qaadanayaan sidii ay ugu gurman lahaayeen dadka beeralayda ah ee khasaaraha ay soo gaarsiiyeen dadka xoogale ku soo jabay waxa uu gudoomiyuhu u soo jeediyay dadka ku dhaqan deegaankaasi in ay Ilaahay ugu mahadnaqaan raxmaadka uu shubay sidoo kalena ay ku samraan dhibaatooyinka dabiiciga ah ee ay roobku wataan beeraha inuu ilaa hadda noo sheegay aduu heer tuuluhu waxa weyn waa ilaa soo dameeyo motorada uu qaaday waa ilaa dhowr inta waxaan jecelahay wixii karaanka sida mas'uuliyiinta hore u sheegeen 10 ceelna waa aasay mas'uuliyiinta hore soo sheegeen wixii karaanka gobol iyo degmaha waa qabanaynaa wixii kalena waxaan qayladhaan dheer aan uga jeedinayaa waxa weeyaan gudo iyo dibadba waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay xukuumadda dawladda hoose ee Berbera Suhay Maxamed Cali iyo sidoo kale xildhibaan Maxamuud Cabdilaahi Aadan Bidhiid waxaana ay labadooduba ay tilmaameen in ay dawlad hoose ahaan kaalin weyn ka qaadanayaan sidii ay ugu gurman lahaayeen dadkaasi nicmo labada nusqaan bay leedahay runtii waxaanu indhahayaga maanta ku aragnaa dib weyn oo waxa weeye marka beeralayda ka soo gaadhay muxuu ahaayay roobka iyo daadadkaas si wixii aanu anagu kala qaban kareyno diyaar baan u nahay waxa kalena anaga naga baaxad weyn inaanu qayladhaan u dirno ujeedadu waa intaa halkan u nimi maanta inaanu bal ka soo war helno ama aanu kormeer ku soo sameeyno waxyeelooyinka uu geystay nimcadii daadadkii dhawaan ka daayay ereyadan oo runtii dee halkan ka muuqda waxyeeladii uu geystay dalagga beeraha iyadoo halkan ay tahay dooxii qadiimka ahaa ee Bixinduule biyahaasi waxay ka yimaadeen markii hore meesha la yiraahdo Bixinduula ayuu soo jiiray roobkaasina Bixinduulu ka daayay iyo agagaarkeeda ilaa Bixinduula ilaa iyo Togan ways hayaa inta uu damage gaarsiiyay ceelasha biyaha ayuu soo gaarsiiyay Bixinduula biriijyada oo dhan buu xoog gaarsiiyay wuxuu gaarsiiyay beerihii waaweynaa ee Bixinduula kuwii dawladda iyo kuwii shacabkaba labadaba wax weyn buu gaarsiiyay intaas waanu soo maray waxa kale oo soo booqnay geed libax oo ahayd meel togii geed libax ay ka sheeyay meesha la yiraahdo Laalays kaasoo uu dhibaato badan laarin bridge-ka gaarsiiyay gudoomiyaha iyo waftigiisa ayaa waxay sidoo kale socdaal ku soo mareen dooxyada waaweyn ee biyaha ku soo jabiyay magaalada Berbera sida dooxa weyn ee kala jab oo isagu dhibaato weyn u geystay bridge-ka ay gaadiidku maraan kadib markii ay daadku xoog galay ay qodeen bridge-kaasi gudoomiyaha ayaa halkaasi fariin uga soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland kana codsaday in laga taageero sidii dooxaasi looga badbaadin lahaa bridge-kaasi ay gaadiidku marayaan maadaama uu dooxa kala jab uu ka mid yahay dooxyada ugu waaweyn ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland taas haddaan laga qabanna waxa weeyaan dooxaas bridge-kaas waa go'aya waxaan markaa dawladda xukuumadda heer qaran aan ka codsanayaa inay si degdeg ah mataqaanaa inay wax uga qabtaan weliba gaar ahaan hay'adda dhismaha wadooyinka waxaan u soo jeedinayaa markii horena idinka bixiyo waa ku mahadsantihiin mashruuca in la xeedho dhinaca mataqaanaa bridge-ka hase yeeshee waa ka raxmadda Ilaahay baa dhacday waxaan codsanayaa markaa oo degdeg in mar labaad gacan xoog loo geysto la soo eego haddii aan taa la yeelinna bridge-kaas waa dumayaa dhow khasaaro badan iyo kala go isku socodkii dalka ayuu wax u dhimayaa mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera tababar muddo 4 maalmood ah socday lagu soo gabagabeeyay magaalada Saylac kaasoo lagaga hadlayay horumarinta iyo daadejinta hawlaha dawladda hoose ee degmada Saylac wariyahayga ayaan la warkan noo soo diray tababarkan oo socday muddo 4 cisho oo lagu dajinayay habka maamulka qarashaadka dawladaha hoose iyo waliba hirgelinta mashaariicda horumarineed ee degmada dib u eegista miisaaniyadda 2014 si loogu daro mashaariicda biyo-gelineed ee degmada
waaxyaha horumarineed ee adeegyada bulshada waxaana tababarkaasi goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Salel Cabdiqaadir Aadan Yuusuf oo isagu halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay ayaa u mahadnaqay mas'uuliyiinta tababarkaasi bixinayay isagoona ugu baaqay maamulka dawladda hoose in ay ka faa'iideystaan muddada uu tababarkaasi socdo simaarkan wuxuu waxtar weyn ka yahay sidii ay u maamulin lahaydeen qarashaadka una kala horeysiin lahaydeen qorshayaasha ama baahiyaadka jira oo baahida sidii loo prioritize gareyn lahaa iyadoo aanu biyo baahanahay haddaynu mar kale ka shaqeyno biyaha ka muhiimsan marka muhiimadda si loo kala leeyahay ee loo kala horeysiinayo mashaariicda la qabanayo ay ku saabsan yahay insha Allah idin ka faa'iideysan doontaan waxaan leeyahay ka faa'iideysi wacan iyo ka qaybgal wacan waxa filan waxaad ka barataana inaad u soo gudbisaan kale ee aanu gaarin tababarkan aan si kuulin ka soo qayb galaan waxa kale oo iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay isuduwaha madaxa tababarada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladaha hoose ee GBLG Saciid Cabdilaahi Axmed Cali Cabdi Cali oo ah la taliyaha dawladaha hoose ee degmada Saylac ee GBLG-ga injineer Cabdiqani Abshir Axmed oo iyaguna ka waramay muhiimadda uu tababarkani leeyahay hawl ku saabsan baahihii la soo ururiyay oo gaadhaya 62 mashruuc sidii loogu sameyn lahaa miisaaniyad sidii loogu sameyn lahaa qiime dabeetana uu noqon lahaa miisaaniyaddii dawladda hoose ee Saylac ee sanadka dambe guddi waliba wuxuu ku xidhan yahay ama uu kormeer u yahay wax ama qayb ka mid ah waaxyaha dawladda hoose oo la shaqeynaya oo ay tahay inuu u doodo golaha dhexdiisa uga doodo wixii baahiyaha kharashkooda u baahan yihiin uu raadiyo iyagoo labadaas la isku xidhayo labadaas wada shaqeynayaan ayaa la diyaarinayaa kharashkii ku bixi lahaa wax waliba waxay qaban lahayd maanta oo ah maalintiisii afraad inaanu sameeyno miisaaniyad dejintii degmada Saylac taasina muhiimad gaar ah noogu tahay annagu ka wasaaradda arrimaha gudaha ahaan iyo ka degmada Saylac ahaanba in la sameeyo qorshe guud kaasoo lagu ilaalinayo habka kharashaadka iyo nidaamka loo maareynayo in lagu fuliyo mashaariic horumarineed oo ah kuwii loogu talagalay in degmadu ay ka duusho oo ay fuliso tababarkan ay ka faa'iideysanayaan isuduwayaasha wasaaradaha ee gobolka xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac iyo shaqaalaha kala duwan ee dawladda hoose ayaan la diiriyay Cabdilaahi TV-ga qaranka magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel maxadka tababarka caafimaadka ee magaalada Burco ayaa xafladda qalin jabina waxa uu qabtay 70 arday oo maxadkaasi dhameystay warkan waxa noo soo diray wariyahayga Cabdimaalik Muuse 88 arday oo ka qalin jabiyay maxadka tababarka caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa loo qabtay xaflad ballaaran oo qalin jabina oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Togdheer iyo Saaxil isuduwayaasha wasaaradda caafimaadka ee goboladaasi agaasimaha fulinta ururka kalkaaliyayaasha iyo umulusooyinka Soomaaliland arday waalidiin iyo marti sharaf kale ardayda qalin jabisay ayaa isugu jirtay kalkaaliyayaal caafimaad iyo umulusooyin Faadimo Cismaan Axmed agaasimaha maxadka tababarka aqoonta caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa faahfaahin ka bixisay ardayda qalin jabisay maanta halkan waxaa fadhiya 3 group oo arday ah oo soo dhamaystay manhajkooda waxbarasho ee loogu talagalay inay ku noqdaan dad professional ah ama dad shaqaale caafimaad ah kuwaas oo kala ah nurse iyo 2 group oo umulisooyinka kala sareeya alxamdulillahi rabbil caalamiin waa ilaahay wax lagu mahadiyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasiin iyo dhigiisa gobolka Saaxil Dr. Cabdiraxiim ayaa u hambaliyay ardayda ka qalin jabisay maxadka tababarka caafimaadka waxa laga doonayaa maanta waxa laga geliyay tacal laga geliyay inaad dadkii loo dhigtaan oo ugu shaqeysaan ugu horeysana waxaan jecelahay inaan u hambaliyno dhalinyarta kaligiisana ka qalin jabinaysa iskuulka culuumta caafimaadka ee gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Mudane Khadar oo goobta ereyo ka soo jeediyay ayaa sheegay inay farxad iyo guul u tahay labada gobol waxa ka soo fadhiya 3 qaybood ee maanta xafladooda iyo hambaliyadooda iyo soo dhaweyntooda iyo qalin jabintooda aan halkan u fadhino waxaan leeyahay hambaliyo marka hore عدي dadka wuxuu qabanaysaa caafimaadkiisa ka shaqeynaysaa mudnaan gaar ah leeyahay farxad weyn bay noo tahay baan hayso waqti in ardayda qalin jabinaysa ay loogu jiraan arday tiradooda ay tahay 22 arday waxaan qaliyaanaya ardayda dhammaantood gaar ahaan gobolka Saaxil
gabagabadii xafladda waxaa abaalmarin la guddoonsiiyey 3 arday ee ugu sarreeyay maxadka halka ay ardaduna ku maamustay maamulka iyo barayaasha maxadka shahaadooyin iyo abaalmarino wararka kale daawadayaal naga soo gaadhay dalka gudihiisana waxaa ka mid ah tababarkan oo muddo 4 cisho ah socday ayaa ku saabsanaa tayada iyo isticmaalka xogta caafimaadka waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland waxaana ka qayb galayay madaxda xog ururinta wasaaradda caafimaadka ee gobolada dalka iyo cisbitaalada saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo halkaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay shaqaalaha inay aqoonta ay barteen u adeegsadaan shaqada ay qaranka u hayaan madaxa xog ururinta ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Cabdilaahi Cabdi Yuusuf oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dardaaray shaqaalaha inay hubiyaan xogta si loogu saleeyo qorshaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxaana hadaladii uu Dr. Cabdilaahi Cabdi Yuusuf halkaasi ka jeediyay kamid ahaa soo qayb galay dhammaan madaxda xogta xog ururinta iyo warbixinaha ee gobolada dalku ka kooban yahay iyo cusbitaalada marka waxaan idin leeyahay aad ku dardaaraya dhammaan qorshaha hawlgallada caafimaadka iyo barnaamijyada waxa lagu dejiyaa wax xogta aad soo dirtaan xogtaas inay noqoto mid dalka iyo dadka u faa'iideysa oo noqoto mid la hubo oo reliable ah inay noqoto mid ka farxisa dhammaan dadkeedii la wadaago xogta hay'adaha dalka caawiya dawladda iyo madaxda gobolada iyo wasaaradda caafimaadka inay noqoto mid la tartanta hababka ay u shaqeeyaan caalamka xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Laascaanood ayaa waxa uu ka warbixiyay mashaariicda horumarineed ee ka fuliyeen degmada Laascaanood warkan waxa noo soo diray wariyahayga Barkad Cumar xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Laascaanood mudane Cabdi Khayr Dire ayaa maanta warbaahinta qaranka mar ula hadlayay waxa uu ka warramay mashaariicda ay dawladda hoose ka wado degmada Laascaanood xogayaha ayaa baaq u soo jeediyay bulshada reer Laascaanood iyo weliba ganacsatada inay iska bixiyaan cashuurta uu leeyahay ee sanadkii dhamaaday waxa kale oo xogayuhu ka warramay nabadgelyada guud ee degmada Laascaanood iyo weliba halka ay wax u marayaan howlihii dawladda hoose degmada Laascaanood 12 bisha aan ku jirno hadalto waxaa jiray shir la isugu yeeray dhammaan xogayaasha dalka oo dhan shirkaas ay agaashay wasaaradda arrimaha gudaha oo hormuudka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha shirkaas laga hadlayay 5 qodob ayay muhiimadiisa ahayd 5 qodob waxay ahaayeen kow saacidintii 8 bilood la soo dhaafay talaabo waxay wax qabadkii dawladda hoose 8 bilood ee degmada ku qabsoomay iyo wixii qabiya ka ahaa iyo wixii qabsan lahaa qof taxaw waxaa mataqaanaa dhiirigelinta iyo dardargelinta kor u qaaditaanka mataqaanaa habsami socodka maamulka degmada mataqaanaa xisaabtan dhab oo laga rabo xogayaasha sidaa ugu socoto waxaa noo xariisnaa 3 mashaariic oo waaweyn 3 mashaariic oo waxay kala ahaayeen macdaad ay dawladda hoose leedahay in la keeno saddexaad wuxuu ahaa wadooyin 4 kilomitir bar oo magaalada dhex maraya ka saddexaadna wuxuu ahaa mataqaanaa haddii ay ku leeyahay tiisiga 2015 haddaan soo noqdo waxa noo qabsoomay hadda aan gacanta ku haynaa macdaadkii 3 kamid 2 kamid gacanta ayaan ku haynaa gaariga dimisa xukuumadda dhexe iibisay iyo cagafta shiisha cagaf gariidar oo iyadana dixida ku jirta oo soo socota iyo labadooda 4 kilomitir barka ayaguna dhammaaday process laakiin waxaan ugu bishaarnay maanta media hoose in ay diyaar tahay oo bisha hadii ilaahay idinkeeda leeyahay inuu soo socoto ay bilaami doonto shaqadeedii aan soo jeedinayaa dawladda hoose waxay ku shaqeysaa cashuuraad bay ku shaqeysaa inaad cashuurtana siisaan oo cashuurta si naxariis loo siisaan cashuurta waxa kaliya aan ku shaqeynano haddii bixinaysa cashuurta ay lagu yeeshay shaqaalaha dawladda hoose ku baaqatay ay soo gudbiyaan tallaabo sharci ayaan ka qaadanaa inna waa Barkad Cumar Axmed qaranka Soomaaliland Laascaanood wararka ay noo soo diriyeen wariyaashiga gobolada iyo degmooyinka dalka ku sugan waxa ka mid ah hay'adda Ambicam ayaa qalab cusub oo loogu talagalay marxinta dhuxusha u qaybisay 625 qoys oo qayb ka ah dadka danyarta ah ku dhaqan xaafadaha Koosar Cali Xuseen Aadan Saleeban iyo waliba Yirowe deeqdan oo ka timi shirkadda shidaalka ee Janaal Energy ayaa munaasabadii lagu qaybiyay waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye tirela mid walba 150 aan siin dadkaas marka waxay noo sheegeen warkay nagu soo celiyeen sida u isticmaaleen kolka laydin sharxo oo waxa laga raysanayaa xushii faraha badnayd aynu muxuu ahaay aynu isticmaalaynay waxa ka nasanayo oo nasan doona dhir fara badan oo leeyahay la gumaado ayaa ku nasan doona arrinta
waxa laydinka baahan yahay sida wax laydinku sharxo inoo isticmaashaan miyiga waa loo qaybiyo tuulooyinka faraha badan leh maxaa gobolka ka tirsan qaar badan baa loo qaybiyey shalayna waxa loo qaybiyo loogu celiyey ay dhiibiyadii hore loo siiyey ayaa mar labaad loogu celiyey tiradii hore la siiyey tira leeg dabkii dhuxushii faraha badnayd ee adeegsan jirteen waa kaga nasan doontaan dhirteenna way noogu nasan doontaa madaxa qaybinta qalabkan ee hay'adda Ambicom Cabdilaahi Cilmi Cali iyo sidoo kale Sakariya oo ah wakiilka u qaabilsan hay'adda Genal Energy qaybinta qalabkan ayaa iyaguna dadweynaha xaafadaha si kala duwan guud ahaanba u sharaxay hababka loo isticmaalayo qalabkan nuxurka guud ku dugan aaladan maanta loo qaybiyay dadkan danyarta ah ee lagu yidhi wax ku karsada ayaa waxa uu yahay in lagu dhowrto dhuxusha guriga taala wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa olole wacyigelineed oo muxaadarooyin waxa ay ka fulisay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar wariyahayaga Jaamac Bood Cadde ayaa warkan noo soo diray madaxa waaxda wacyigelinta iyo waanada wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saraar Sheekh Ibraahim Salaad Jaamac ayaa waxa uu kulamo wacyigelin ka sameeyay gudaha magaalada Caynaba kuwaas oo bulshooyinka ku dhaqan gobolka Saraar kaga wacyigelinaya adkeynta nabadgelyada iyo sidii looga hortagi lahaa sariyaasha sharci darrada ah dadku si iskooda uga ooteen goobihii ay xooluhu daaqi jireen iyo sidoo kale baraago iyo deegaamooyin cusub oo dhawaan ku soo kordhay gobolka Saraar kuwaasi oo la yeeleelay deegaamadii ay xooluhu ku badbaadi jireen waxaa wariyahan soo noqday oo aan halkan ka eedaamina in sida loo taxadiro oo laga ilaaliyo ummadda wixii dhibaato keenaya marka la arkana lagu miisaamo nabadgelyada nolosha xiriirka ummadda mustaqbalka lagu xisaabtamo waxaan maxay keenayaan maxay soo waran guryaha dambe marka laga yimaado dilalka iyo dhibaatada dhacaya waxaa iyaguna ma soo noqda mar allaale iyo markii inuu nin walba sahansado meel ummaddii uu weli sameeyahay qawarko intifaac xoolo inay ku yaalliin inuu markaa beero yaryar iyo oodo lagu oodo cashkiga oo soo seero loo xiro seeriina ay sii xigtay berkadiina ay sii xigtay magaala madaxa waaxda wacyigelinta iyo ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ee gobolka Saraar Sheekh Ibraahim Salaad Jaamac oo shirkiisan jireed ay kala qayb galeen cuqaal iyo waxgarad ka tirsan gobolka Saraar waxa uu si weyn guud ahaanba bulshooyinka ku dhaqan gobolka Saraar ugu dardaarmay inay ka shaqeeyaan isku xidhka bulshada isla markaasina ay wax kasta oo dhexdooda ku yimaado ku dhameeyaan wada tashi iyo walaaltinimo sidaa ku gaarsiinayno annagoo matalayna wacyigelinta iyo waaradii iyo nabadgelyada ku gaaraysa wasaaradda diinta iyo awqaafta مثلا وحنو وقبلنا قبل السنة عمر وحسب كتيرا وقال سبحانه وتعالى وحنا رجلا بالكبور مايو عندما نجرب بالسعود كبر من عندنا ما شطوا وممكن نقول سلاس بقين وكذا من دوما وحنا ندخل يقرب والبيتور بيكسر كذا إن الله شغال يتذكر أحسن كل حشرة مسألة كشغالي sidoo kale xubno kamid ah cuqaashi iyo waxgaradka kala duwan ee gobolka Saraar oo wacyigelintan madaxa waaxda wacyigelinta iyo waanada ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ee gobolka Saraar uu ka fulinayay deegaamada gobolka Saraar ku wehelinayay ee dhamaantoodba si ballaaran u soo dhaweeyay wacyigelintan ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ay ka fulinayso deegaamada gobolka Saraar Jaamac Bood Cadde TV-ga qaranka Soomaaliland Caynaba wararka ay noo soo diriyeen wariyaashiga gobolada iyo degmooyinka dalka ku sugan waxa kamid ah kuwani maaha shaqaalaha nadaafadda ee dawladda hoose manaha shaqaale shirkad nadaafadeed balse waa dadweyne isxilqaamay oo ah dhismayaasha ku yaala laamiga Afgooye ee magaalada Burco oo dhawaan dib loo dhisay dadweynahan ayaa iskood u go'aansaday inay maalin walba nadiifiyaan laamiga inta hormarta waa kuwan iyagoo ka hadlaya waxyaabaha ku kalifay inay talaabadan ku dhaqaaqaan waxa weeye waxa ugu kalifay inaan mar haddii jidkii la sameeyay oo marka hore dawladda jidkii la sameeyay oo dawladda jidkii sameysay boorkii baabuurtu saareen waa inaan anigu iska nadiifiyaa ma haddii jidkii la nadiifiyey waa inaan anna nadiifiyaa jidkii laami la saaray waa inaan naadigii nadiifiyaa si aan boorku anna iigu soo duulin waxaa igu kalifay dee hadday dawladdu samayso asuu dayac urku rugo sidiisaba miyaanu khasaare ahayn waxaan ka digayaa la sameeyaya yaanu dayac u lumin yaanu dee inta biyaha laga daayo oo ciiddaha laga qaado oo wasikda la dhigayaha laga daayo sidaasuu raandhis ku yeelanayaa mudayna ugu anfac raxiim
alxamdulilah ilaahay baa mahad leh mahadda labaadna waxa leh dawladda noo dhistay wadadan quruxda badan leh ee magaalada bilicdii magaalada soo celisay marka qof kastoo muwaadina waxa ku waajiba inuu ka shaqeeyo bilicda magaaladiisa waxaan ugu kalifay inaan wadada fiiqno waa midda koowaad ee horta bilicdii magaalada ayaa dawladdu noo dhistay in wado qurux badan noola sameeyo midda labaad wadadii haddii la sameeyey ee hanti qaran gashay waxaa koray wax la yidhaha dhas iyo ciid dhaskaa iyo ciidda waxaa ku filan dadka muwaadiniinta in ay ka caaraan wad waxa weeyaan nadaafaddu waa shay min al-iimaan waxa weeyaan bilicda magaaladu ama bilicda maxaan ku leeyahay wajahadaaduna waxay ku soo baxaysaa inaad nadiifiso laamigii maadaama la sameeyey waxay nagu kaliftay intayada maxaan ku leeyahay laamiga ku soo jeeda haddaanu meheradanahay iyo haddaanu xaafadaan nagu dhegannahayba inaanu maxaan ku dhahay isku tambiihino isku baraarujino inaanu hortayada nadiifino waxaan u nadiifinayaa waxaan nadiifinayaa dalkan u nadiifinayaa wadadaan nadiifinayaa tee uskaga iyo ciidda iyo qurunkaanu iska dhowrayna iyo boodhka waana dee wadanad maaha waana aqriga hortiisa aqriga xigaba fiiqa meel kasta oo iskaga yaalle oo qurin yaalba waxaa lagu kalifay muwaadinimo iyo wada shaqayn dadku inuu dalku loo wada shaqeeyo oo wax wada qabto saa darteed ayaa lagu kaliftay tallaabada nadaafadda ay ku dhaqaaqeen dadweynaha ka soo horjeeda ama guryahooda ay ka soo horjeedaan wadada afgooye ee magaalada burco ayaa noqonaysa tallaabo ku dayasho mudan cabdimaalik sheekh muuse oldoon telefishinka qaranka somalilan burco akhyaarta iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa warka telefishinka qaranka somalilan aad idinka mahad celinaynaa qadarka waqtigiina nasiisan aad ku daawateen muddadii warkani socday warka waxaa idin socodsiinaya anigu Axmed Saxardiida waxaan idinku dhaafayaa intaanu ku kulmayno warkan warka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.